shirkii sanjirayda goodhaweyd hoyga uu ka degay guud Hargeysa oo ku qabtay gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isla markaana xiligan musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirooye waxa uu ku cadeeyay mowqifkiisa ku aadan in xukuumaddu heshiis kula gasho in saldhig military laga sameeyo magaalada Berbera dawladda Imaaraadka isagoo si cad u taageeray mowqifka ay iska taageen xubnaha hoggaanka xisbiga wadani iyo sidoo kale xildhibaanada aqalka baarlamaanka ugu jira maadaama xisbiga wadani عديي موقف كيسة وكتاجن يهي صلّي ميليتري جمهورية الصوماليلاند شاكتي إن السياسي دولة الإمارات كا المجال بربراء ما دام حل ما نضج لها وكيل لها كسوت شيء ده حسب وطني عديين موقف كوده وأنا عديين شعب غير الصوماليلاند وحنانيجا قدوميها جلها وكيل لها أهنا مشرح حسبي وطني شعبي غير سوماليلاند وعضينا إياه إن الله موقف هاي حسبي يحل لوانا ذا كسوتشي ده حسبي وطني يقولها وكيل ذا وعدي إن أصل جامع للتري وحضني سوماليلاند وشرين سؤال شو رسين سويدين شعبي هم حوي باهي موقف ناصر دق ميليتري جوابته ومايا مواطن كاسته هاي سويديو محو نوسو كردين اياه صلقني ما مقع ما ماموس ما قيمة ما اعتراف جوابته وحوي مدني نوسو كردين مايو واحد شرطة دولة اينو صلقة سنينينا وحوي قوصنة الصوماليلاند dal ka mid ah ama qayb ka mid ah Soomaaliya taas daradeed magac iyo maamuus iyo magac iyo qarannimo inuu soo kordhaysa midna ma jiro haddaynu isweydiino oo inuu qarannimada hoos u yar dhigano maxaa manfac inoogu jiray haddaynu isweydiino waxa manfac inoogu jira ma jiro sida la cadeeyay dokumentiga ugu horeeyay ee ku soo codsatay dawladda Imaaraadku saldhiga waxa ku cadaa إن كرادة صلّيق أي تهاي هل دبيع لبا $1,000,000 سنتكي قيمة هسين تلاقي وقرانيسان صلّيق بربراء أما مدارك بربراء وهارو أديك سيدي دولة الروشكا هي دولة مريكانكا دولة الروشكو وحيقول بدي شي صوماليا حل قاس إنا ديستو عيدان كي وحوق وين أفريكا دمدو دولة مريكانكو oo ku 980 Soomaaliya heshiis kula gashay inay isticmaasho oo kaliya waxay ku 980 qiimuhu ku joogay $100 milyan oo waqtiga joogay hadii la qiimeeyo maanta lacagtaasi waxa laga yaabaa inay u dhiganto $1 bilyan oo marka manfaca la sheegayna barkii dadku la yaabay waxa shacbiga hadda loo sheegaa mashaariic baan inoogu bedelaya maxaa dhaxal inoogu jira caruurtana dhaxal ma ugu leeyahay mashruucani jawaabtu waa maya 25 sanadood ayaynu qayb dhulkeena ka mid ah dal shisheeye siinayna oo bilaash u siinayna 25 sanadood macnaheedu waxa weeye dhulka aynu leenahay awood uma lihin oo ma geli karno 25 sanadood kama kicin karno saldhigyada militariga taariikh bay leeyihiin waxaa ka warqabtaan saldhigga Guantanamo Bay ee ku yaala Cuba Mareykanku 100 sano ka hor ama ka badan buu la saxday Cuba waxa awood u waayay Cuba inay ka kiciso Mareykanka saldhiggeeda halka ku yaalay taa daraadeed macnaheedu waxa weeye dhul aanad lahayn oo dhulkaaga ka bixisay 25 sanana aanad ka hadli karin waxay ila tahay dhaxal uga tagi bayna caruurteena dhaxal xun baynu uga tagaynaa waxa kale oo inta dheer saldhigu wuxuu yeelan doonaa saameyn colaad inoo keenaysa waxaynu ka warqabnaa dalka Yemen iyo Soomaaliland waxay isu jiraan 90 kilomitir ama 90 mayl dayuuradaha waxaynu ka warhaynaa dalka la siinayo saldhiga inuu dagaal kula jiro dalka Yemen waxay la tahay inay qarsoonayn in maanta
dhanka kalena TV-gan caalamiga ee Somali Cable ayaa gudoomiyaha wax ka weydiiyey sababta kaliftay in heshiis aan quladiisa arag ay ka sii dayriyaan waxa uu ku jawaabay sidan inuu hagaag si kala su'aashaan u dhigo mudane gudoomiye waad maasan tahay magacaygu Faisal Fifa Somali Cable TV ka socda sida tilmaamtay wasiirka soo xignaysa wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay in haba yaraatee aanu jirin heshiis la galay mar hadday saa tahay maxaa meelonka waa ka degdegteen mar haddii heshiiskii baan la ogeyn nooc yahay kii ruushka inuu la mid noqon doono inuu ka qaalisanaan doono in qodobo badan oo Soomaaliland ku duugan oo itiraafku ku jiro oo ah inuu la mid yahay kii xisbiga ku dhawaaqay kii golayaasha ku dhawaaqay waxa kaloo macluumaadka aan markii hore dee xukuumaddu noo sheegtay waxay ahayd in heshiis keenayso waxa kaloo iyana dee wasiirku cadeeyay sida uu saxaafadda u sheegayba inaan heshiis jirin marka taasi waxay keenaysaa waanu eegi doonaa berri madaxweynuhu wuxuu keeno iyadii oo Faisal Maxamed Aadan Faisal Fifa TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.